بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكل ونكتن halkani waa Gorfin TV daawadayaal markale kula wanaagsan xubinteen waxaynu ku soo qaadanaynaa sirdoonka Itoobiya oo sheegay inay fashiliyeen qarax lala maaganaa safaaradda Imaaraadka ay ku leedahay Addis Ababa wakaaladda wararka Itoobiya ee Ethiopian Press Agency ayaa sheegtay in la qabtay 15 qof oo lagu tuusan yahay inay qorsheynayeen inay weeraraan safaaradda Imaaraadka Carabta ay ku leedahay magaalada Addis Ababa idaacadda telefishinka dowladda Itoobiya ayaa waxay baahiyeen hadal qoraal ah oo ka soo baxay hay'adda sirdoonka iyo ammaanka qaranka Itoobiya ee loo soo gaabiyo NISS oo lagu xaqiijiyay in la qabtay koox dambiilayaal ah oo lagu tuusan yahay inay adeegsanayaan ama ay u adeegayaan dal shisheeye oo aan la carabaabin bayaanka ka soo baxay hay'adda sirdoonka Itoobiya ee NISS waxaa kaloo lagu sheegay inay gacanta ku dhigeen hub waxyaabaha qarxa iyo dokumentiyo kadib markii ay howlgal ka sameeyeen dhismo ay adeegsanayaashaasi ay ka deganayeen meel ku dhow dhismaha safaaradda Imaaraadka Carabta ay ku leedahay bartamaha magaalada Addis Ababa adeegsanayaasha waxaa la sheegay in lagu soo qabtay howlgal wadajir ah oo ay fuliyeen hay'adaha ammaanka booliska federaalka Itoobiya iyo kuwa kale qoraalka ka soo baxay hay'adda nabad sugidda dalkaasi waxaa lagu sheegay in kooxda la qabtay ay qorsheynayeen weerar sababi lahaa khasaare weyn oo naf iyo maalba ah waa sida hadalku dhigeen bayaanka waxaa kaloo lagu sheegay in xogta qorshahaasi ay malagayeen kooxahaasi ay ka heleen hay'ado sirdoon iyo kuwa ammaan ee dalalku yaala qaaradaha Afrika, Yurub iyo Aasiya kuwaasi oo dabagal ku hayay dhaqdhaqaaqa iyo xogaha kooxda fulan lahayd weerarkaasi waa sida hadalku loo yiri dhinaca kale hay'adda sirdoonka Itoobiya ee NISS waxa ay sheegtay inay jiraan kooxo labaad oo yar qorsheynaya inay weerar ka geystaan safaaradda Imaaraadka Carabta ay ku leedahay caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum bayaanka waxaa lagu xusay in sirdoonka Suudaan kala shaqeynayaan weerarka la fashilay balse sirdoonka Suudaan weli kama aysan hadlin arrintaasi warbaahinta dowladda Itoobiya ee Fana waxay iyaduna sheegtay inay sirdoonka NISS qoraalkooda ku sheegeen in dalka Sweden lagu qabtay nin magaciisa lagu sheegay Axmed Ismaaciil kaasi oo la tilmaamay inuu hogaamiyaha kooxda weerarka geysan lahayd waa sida hadalka loo dhigay bayaanka waxaa kaloo lagu sheegay in qabashada ninkaasi ay ka dhalatay kadib markii ay warbixino isdhaafsadeen hay'adda sirdoon ee wadamo ku yaala qaaradaha Yurub, Aasiya iyo Afrika oo aan la shaacin kuwa ay yihiin warbaahinta dowladda Itoobiya Fana waxay kaloo sheegtay in la xiray mid ka mid ah kooxda weerarka geysan lahayd oo magaciisa lagu sheegay Cali Axmed Ardayto oo 35 jira kaasi oo la tilmaamay inay kooxda siiyeen lacag dhan $10,000 si uu fuliyo weerarka qaraxyada ee lala magana safaaradda Imaaraadka ay ku leedahay magaalada Addis Ababa sida hadalka loo dhigay qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in hay'adda sirdoonka iyo ammaanka Itoobiya ee NISS ay ku raad joogaan 22 eedeysane oo kale kuwaas oo lala xiriirinayay in qayb ka ahayeen kooxda la qabtay waxaa la sheegay dadka lagu raad jooga in ay ku nool yihiin dalal kala duwan oo aan la sheegin kuwa ay yihiin dhinaca kale wakaaladda wararka Suudaan ee la soo gaabiyo Suna waxay sheegtay inay sirdoonka Itoobiya ay fashileen weerar kale oo lala maaganaa safaaradda ay Imaaraadka ku leedahay caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum si kastaba haatee ma jiraan wax war rasmi ah oo ilaa haatan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka oo ku aadan in la fashilay weerar lala maaganaa safaaradaha ay ku kala leeyihiin magaalooyinka Addis Ababa iyo Khartoum تم استكمال تقديم قوائم المرشحين والمرشحات عن كافة الأطراف اليوم للسيد رئيس مجلس الوزراء ليقوم باختيار طاقم الوزراء الذي يعمل معه من شخصيات لها قدرات بما يحقق حكومة تعكس خبرات وثراء الشعب السوداني وتنوعه الجهوي والعمري والنوعي والسياسي لتعلن مطلع الأسبوع القادم بإذن الله inta labaad waxaynu ku soo qaadanaynaa magacaabista xukuumadda cusub dalka Suudaan oo dib loo dhigay waa maxay sababta golaha ku meel gaarka ah ayaa talada dalkaasi iyo xubnaha qaybta ka xukuumadda ayaa isku waafaqay in dib loo dhigo qorshaha maanta loogu dhawaaqi lahaa xukuumadda cusub ee dalkaasi qoraal ka soo baxay golaha iyo talada dalkaasi ayaa lagu sheegay in dib u dhigistaasi lagu go'aamiyay kulan uu shir gudoominayay madaxa golaha gumeel gaarka ee Suudaan Generaal Abdulfataax Al-Burhani oo xalay lagu qabtay qasriga madaxtooyada magaalada Khartoum afhayeennada golaha gumeel gaarka dalkaasi Maryama
al saadiq al mahdi ayaa sheegtay in dhismaha xukuumadda cusub dib loo dhigay ilaa iyo bishan 11 ku beegan maalinta khamiista ee soo socota. waxa ay tilmaamtay in dib u dhaca magacaabista xukuumadda cusub u sabab tahay si xubno cusub loogu soo daro golaha wasiirada ee lagu dhawaaqi doono. afhayeenada waxa ay qeexday in la wada magacaabay dhammaan 25 wasiir ee xukuumadda cusub markii laga reebay hal wasiir oo magacaabistiisa ay weli la tashi laga leeyahay. ku dhawaaqista xukuumadda cusub waxaa qorsho ahaa in maanta oo bisha Febraayo ay tahay 4 lagu dhawaaqo iyadoo gudiyada iyo dhismaha golaha sharci dejintana ama baarlamaanka la filayay in lagu dhawaaqo bisha Febraayo 25 bishii Janaayo 28 ee lasoo dhaafay waxay golaha kumeel gaarka ee hay'adaha dalkaasi ku heshiiyeen jadwalka dhamaystirka qaabka shaqo ee xilliga kala guurka dalkaasi. xubnaha xukuumadda cusub waxaa magacaabi doona xisbiyada qaybta ka ah dadaalkii nabadda iyo heshiiskii nabadda ee hore loogu saxiixay caasimadda dalkaasi koonfurta Suudaan ee Juba bishii Oktoobar 3 ee sanadkii hore ee 2020. heshiiska nabadda ee Juba Peace Accord waxaa wada saxiixay dowladda Suudaan iyo kooxaha hubeysan ee ka dagaalama gudaha dalkaasi. dukumentiga dastuurka qabyada ee dalka Suudaan waxaa la dejiyay bishii Sebtembar 5 ee sanadkii 2019 dhowr bilood kadib markii ay hoggaanka militariga dalkaasi ay xilka ka tuureen madaxweynihii hore ee Suudaan Generaal Umar Hassan al-Bashir bishii Abriil 11 ee sanadkii 2019. teen ugu dambeysay waxaynu ku soo qaadanayna dab khasaare geystay oo baabi'iyay dhismooyin ganacsi oo ku yaala meel ku dhow qasriga madaxtooyada dalka Suudaan. xarumo ganacsi ayaa la sheegay inay ku basbeereen dab ka kacay dhismo laga dukaamaystay oo ku yaala suuqa loo yaqaano Naivasha Market oo ku yaala bartamaha caasimadda dalkaasi una dhow qasriga madaxtooyada dalkaasi. muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya inuu dabka si xoog leh ugu faafay dhismooyin ganacsiga shopping mall oo halkaas ku yaala kuwaas oo lagu iibin jiray dharka moobilada qalabka elektaroonigada. kooxaha dab-demiska dalkaasi ayaa la sheegay inay qayb ka qaateen damin dabkaasi oo khasaare xoogan geystay. lama soo warinin dad wax ku noqday dabkaasi mana kala cadda waxa sababay dabkaasi khasaaraha baan geystay. ganacsatada lahaa goobaha dabku qabsaday ayaa la arkayay iyagoo dhex meeraysanaya dukaamadooda gubtay si ay uga helaan bal haddii qalab uu ka badbaaday. si kastaba haatee maa markii ugu horeysay uu dab ka kaco goob ku dhow qasriga madaxtooyada Suudaan iyadoo sanadkii hore dab ka kacay xaruntaasi ama qasriga madaxtooyada Suudaan waxaa khasaaro u geystay qaybo ka mid ah qasrigaasi. waxaa intaasi noogu dhow warbixinadii aan maanta isku soo duubnay waxaadna kala socoteen Gorfayn TV. haddii aad nagu cusub tahay daawade fadlan saar subscribe si ay ku soo gaaraan wararka warbixinada aynu soo gudbino. sidoo kale asxaabtii hore macaamiishuna waxa aan leenahay nala sii jooga waqti dheer waana mahadsantiin dhammaantiin. halkan waa Gorfayn TV.